maamulka Somaliland ayaa war ka soo saaray booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku tagaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa markaasi si weyn loogu cambaareeyay booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Waxay sidoo kale war saxaafadeedkooda ku xuseen ma ogtahay ku tagaya ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre magaalada Laascaanood oo xadgudub ku yahay madaxbannaanida Somaliland. sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka Somaliland waxay qoraalkeeda ku xuseen in wixii xasilooni darro ah ee ka dhashay booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku tagaya magaalada Laascaanood ay mas'uuliyadda qaadi doonto xukuumadda federaalka Soomaaliya. warsaxaafeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka Somaliland ayaa sidoo kale loogu baaqay midowga Afrika urur goboleedka IGAD qaramada midoobay iyo jaamacadda Carabta in ay garowsadaan falalka mas'uuliyadda darre ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wadaba yiraahdeen gudaha Somaliland. sidoo kale waxay ku xuseen warsaxaafadeedkooda in booqashada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku tagaya magaalada Laascaanood uu lid ku yahay amniga gobolka Geeska Afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland waxay warsaxaafadeedkooda ku soo gabagabeeyeen in maamulka Somaliland uu qaadi doono tillaabooyin cadcad oo ay ku difaacayaan qarannimada iyo sidoo kale madaxbannaanida maamulka Somaliland. hadalkan ka soo baxay maamulka Somaliland ayaa imanaya iyadoo magaalada Laascaanood iminka ay ku sii qulqulayaan wafuud kala duwan oo dhaw ah safarka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kaas oo la filayo in saacadaha soo socda uu ku gaaro magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.